war weyn ayaa ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya waliba waxaa lagu leeyahay Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka noqday dagaalka ka socda gobolka Shabeellaha Hoose. war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu yiri sarkaal ka tirsan booliiska Soomaaliya sidoo kale rag ka tirsan RSF-ta Suudaan iyo xubno kale oo Imaaraadka Carabta dhamaantood dhaqaale ka qaata in ay markaas hurinayaan colaadda ka taagan Shabeellaha Hoose. waxaad ogtihiin muddooyinkii ugu dambeeyay in beelaha Biyamaal, Abgaal iyo Habargidir ay isu hanjabayeen waliba odayaal nabadoon ah 70 sano jir ah ayaa isugu hanjabayay dil iyaga oo qaatay hub leh noocyo kala duwan. naarta ayaad nagu fogeynaysaan iyo annagu naar ayaan hore u soo tabcanay tusbaxa ayaan hadda qaadanay ayay isugu jawaabeen dhaqankii Soomaaliyeed. laakiin waxaas oo dhan waxa ka dambeeyay bay tiri dowladda federaaliga ee Soomaaliya istaga Imaaraadka Carabta. haddaba warkan waayo cidda soo saartay sideese kula muuqda adiga. geesta kale ciidanka Itoobiya waxay isaga baxeen magaalada Baydhabo. xarumaha muhiimka ay waliba ka baxeen sida garoonka diyaaradaha iyo madaxtooyada oo iyagu amnigeeda ay sugayeen. aadamadooda markan waa loo baqaa khatar weyn ayuuna ku jiraa baa leeyahay oo waxaa laga yaabaa lafta gareen iyo ciidankiisu inay darbiyada ugu soo daataan saacado kooban kadib. gudaha Baydhabo waxa ka soconayo ayaan isla eegi doonaa haddii alla weyne laga helo. muqdisho kulamo siyaasadeed oo aan inaba caadi ahayn ayaa ka taagan saacadihii ugu dambeeyana war weyn ayaa ka soo baxay Mareykanka. muxuu yahay warkaasi? qodobadaas ayaan isla jeexjeexayna. soo dhow aragtidaada nagu beeri muuqaalka like saar siina share garee waa mahadsan tahay. colaad beeleed xoogan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka soo cusboonaatay gobolka Shabeellaha Hoose waxaana halkaas isku haya beesha Biyamaal ee Direed iyo beelo ka tirsan kuwa hawiyeysi gaara beelaha Habargidir iyo Abgaal. waxay hore isugu hanjabeen duulaano iyo dagaalo toos ah. xitaa waxay dagaal qabiilyadii hore midan uga duwanayd inay hanjabayeen odayaasha nabadoonadii la rabay inay wax xaliyaan ayaa waxay leeyihiin 70 jir iyagoo ah waa dagaalamayna qoryo nooca culus ayay muuqaalo ku soo duubayaan isagoo midba midka kale ugu hanjabaya awoowahe ayaa awoowaha kabaha u qaadi jiray iyo wax la mid ah. hadda marka war cusub ayaa dowladda ka soo baxay. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in dowladda Imaaraadka iyadoo adeegsanaysa sarkaal ka tirsan booliiska Soomaaliya ay Shabeellaha Hoose ka abuureyso jabhad la mid ah RSF-ta Suudaan si dalka loo burburiyo. warkan waa war weyn ma aha war la dheelsan karo. laakiin in dowladdii Soomaaliyeed tiraahdo sarkaal booliiska Soomaaliya ka tirsan ayaa loo adeegsanayaa dagaal qabiil oo waliba dal shisheeye u adeegsanaya iyada laftirkeeda waxay noqotay ceeb kale oo weyn. waxaana leeyahay hadalkan gabigiisu wuxuu mudnaa in dowladdu qaris sababtoo ah inaad tiraahdo sarkaal qaran oo ka tirsan saraakiisha waddanka ayaa loo adeegsanayaa dagaal gudaha Soomaaliya ka dhacaya. waxay ahayd baa la yiri wax laga xumaa. dowladda Soomaaliyana waxaa xal u ahayd baa la yiri in ay iska qariso kiiska noocan oo kala ah oo markaasi aysan basheegin. inaad tiraahdo sarkaal booliiska Soomaaliya ka tirsan ayaa ku lug leh kiiskaas ceeb iyo fadeexad ayay ku tahay baa la yiri dowladda. sidoo kale sarkaalkan iyo Imaaraadka jabhad cusub ay abuurayaan Beetri oo waa wada shaqeynayaan. waxaana dowladdu intaas ay ku dartay in RSF-ta Suudaan oo kale la rabo in jabhad Shabeellaha Hoose laga abuuro kadibna wax laga qaban waayo Soomaaliya oo dhan ay burburiso. waana wax suuragal ah oo dhici kara sababta markii la eego xaaladda sida ay wax ku socdaan iyo nidaamka hadda markii la fiiriyo waxaad isleedahaba xaalka sida la sheegay ayuu markaasi u jira. geesta kale Itoobiya ayaa ciidankeeda kala baxaysa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. xitaa Baydhabo kaliya maaha qaybo ka tirsan 3 gobol ee Koonfur Galbeed. xarumaha ugu muhiimsan oo ay ka mid tahay garoonka Shaati Guduud ee Baydhabo, xarunta madaxtooyada iyo meelo kale oo muhiim ah oo ciidanka Itoobiyaanka amnigooda ay sugaan ayaa markaasi ciidanka laga saaraya. warbaahinta Itoobiya ayaa sidaas ku warramay si gaar ah wargeys ka soo baxa Addis Ababa oo Addis Standard lagu magacaabo ayaa sidaas wariyay saacadihii ugu dambeeyay. wargeyskan oo soo xiganaya saraakiil sarsare oo Ethiopiana ayaa waxa uu sheegay in ciidanka Itoobiya ay qorsheynayaan dabayaaqada bishan aanu ku jirno inay isaga soo baxaan gudaha Baydhabo iyo qaybo ka tirsan gobolka Bay khilaafyo siyaasadeed oo halkaasi ka dhacay awgeed. ma lafta gareen ayay la jirsadeen oo aadamadoobe meel cidla ah kaga tagayaan? ma dowladda Soomaaliya ayay isfahmi waayeen? ma wax kale ayaa jira? wargeyska ilaa ay hadda ma uusan caddayn. waxaase muuqanaysa in xiisadda markaasi ay isbedeli doonto. ciidanka lafta gareen ayaana maalmihii ugu dambeeyay duulaano xoogan ku soo qaadayay deegaano ka tirsan maamulka gaar ahaana aadamadoobe iyo xulafadiisa meelaha ay ku sugan yihiin. weerar madaafiic iyo hoobiyaal isugu jira ayay ku soo qaadeen xarumo muhiima waxaana la leeyahay
waa suuragal in aadan madoobe maamulkaas si xooga looga faramaroojiyo haddii ciidanka etoobiyaanka ay ka baxaan gudaha magaalada baydhabo iyo deegaanada kale. si kastaba ha noqoto koonfur galbeed khilaafyo siyaasadeed oo culus ayay muddooyinkii ugu dambeeyey wajahaysay, waxaana leeyahay maamulka aadan madoobe uu majraha u hayo ee sida awoodda ah lagu geeyey koonfur galbeed waa loo baqaa haddii ciidankaas etoobiyaanka ee shisheeye ay isaga baxaan. cabdicasiis lafta gareen ciidankiisa ayaa ku sugan duleedka baydhabo, waxaana maalmo kasta ama maalin kasta ay soo qaadaan weeraro aroor hore ah iyo habeenkii oo ay roondo sameeyaan iyada oo baydhabo bandow laga dhigay, islamarkaana ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay ku jiraan keebla yurub. cabsi badan magaalada ka jirto, laisleeyahay goorme ayay soo duulaan tagi doonaan. markii hore madaxweyne xashi maxamuud iyo dowladdiisa aadan madoobe waa dhiseen, dhaqaalo badanay ku bixiyeen, xitaa diyaarada darona ayaa lagu ilaalinaya amniga magaalada. F-16 turkiga xitaa waa la kiciyey si amniga baydhabo loo adkeeyo. doorashadii waa dhacday, aadan madoobe waa la caleemo saaray, xijisaa la yiri deegaanka ah. etoobiyaankiina waa ka tagayaan, cabsi xoogan ayaana soo wajahay sida wararku sheegayaan.